waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta iyo walaalada ku xiran channelka Somali Network Classroom kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad kooraskeen DS Digital Security ka gooribna khatara kombiyuutarka hela iyo shirkadaha sida ugu hortagtay shakhsi ahaan kombiyuutarka khataraha hadii soo haleela waxaan marinay tutorialkeeni 19aad ayaan marinay maanta waxaan ka warramaynaa waxa la yiraahdo Hogas Virus ayaan maanta ka warramaynaa waxyaalihii su'aalaha commentiga noogu reebisay wixii dheeraadana insha Allah comment waxaad noola socodaysaa gmailkeena somnetclass@gmail.com. maanta haddaan imano Hogas definition. Hogas waa maxay intaana waxaan meesha yaala aan akhriyo waxa weeye Hogasku horta waa email lagu soo dirayo emailkaas oo been ah ama email ha noqoto ama fariin ha noqoto ama daaqad ku soo furanta ha noqoto kombiyuutarkaaga taasoo loo sheegayo in kombiyuutarkaaga virus ku dhacay. waa been waa kombiyuutarkaaga ma helin virus laakiin waa mid been ah oo waxa lagu leeyahay tusaale kale kombiyuutarkaaga virus hebel baa helay si aad iskaga saartid fadlan halkan si kali gare ama waxa lagu leeyahay fadlan si iskaga saartid fail hebel kombiyuutarkaaga ka saar oo antivirus ah ama waxa lagu leeyahay si aad uga saartid fadlan updating website-ka hebel qabo mala socota marka isaga ayaaba been ah. marka haddii lagu weydiiyo virus kale la Hogasku waa fake email ama waa fake pop waa fariin lagu soo dirayo dadkaasoo providers waxay ku sheegaysaa a warning about a virus in kombiyuutarkaaga fariin ku saabsan virus waxa lagu leeyahay kombiyuutarkaaga virus hebel baa helay sida ninka kombiyuutarkiisa maxaa lagu leeyahay viruses baa fundi 3 virus ayaa la helay waxa lagu soo diray ninka PC-gaaga wuxuu u bukaa by viruses sumaartid marka ama fariin hamba lagu soo diray karaya ama daaqad kombiyuutarka ku soo furantay ay noqonaysaa ama linki hamba lagu soo diraya ama xaysin hamba lagu soo diraya ama gmail kulba say noqotay Hogasku waa fariinta beenta ee kombiyuutarka ku sheegaysa virus beena inuu ku jiro. waxaa su'aalaha sidee la iskaga ilaalin waxaad iska ilaalinaysaa sida qodobadii hore in aanad rumaysan waxyaalaha oo aad samaysid haddii aad fariimahaas oo kale aragtid meelaha lagu okay aanad ku dhufan haddii lagu website hebel oo kala qabo waa inaad qaban oo aad qabatid website-yada laga leeyahay haddii tusaale lagu office-kaaga ayaa dhacay sideeteed fariin baa lagu soo diray office-ka kugu jira waa dhacay si aad inaad cusboonayso fadlan linkiga ku dhufo ha ka yeelay waxaad qabataa office-ka website-kii laga lahaa oo Microsoft oo kusoo ogsoono in soo cusboonaaday ama la sameeyey version ka dambeeyay version aad adeegsanaysa hadday runtahay u ahlan wasaal oo kala soo deg website-ka laga leeyahay Microsoft ay ku leedahay website-iska kala soo deg website kale kala soo degin. qodobka kale aad iska ilaalinayso waxa weeye meelaha aad website joogtid meelaha aad taabanaysid oo dhan hadday noqoto oo kayda iyo hadday noqoto meelaha tigtan saarti iska jir badanaa waxaa jira marka qodobka saddexaad iska ilaalin karaysid marka aanu joogno aanu la soo degayno application badanaa wuxuu nagu amraa in aanu waxyaalo badan oo settingkeena ay ka bedelo hadday noqoto inaan date-ka ka bedelo hadday noqoto inaan meel aan uu yidhaahdo tigsaar waxyaala marka tigta saaraysid waa inaad garataa sababteed u saaraysid iyo sababta uu wado. intaasay kusoo gubinaa videoga intaan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo Cabdi Xuseen Axmed ayaana nila socodsiinayay.